lix Soomaali ah oo lagu dhaawacay Kipton inta la xaqiijiyay 6 ruux oo muwaadiniin Soomaali ah iyo nin Ethiopian ayaa lagu dhaawacay tuulada Infilino oo 40 kiilomitir u jirto magaalo xeebeedka Kipton ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay kooxo burcad South African ay ku weerareen dukaamadooda sida ay goobjoogayaal Soomaali ah ii sheegeen waxa xalay dhaawacaasi ka sokow deegaanadaasi lagu booway 11 dukaan oo 10 ka mid ah ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah halka kan kalena uu lahaa nin Ethiopian ah waxa falkaasi weerarka fuliyay kooxo bistoolada ku hubeysan oo si caadi ah goobta ugu baxsaday kor inta aysan soo gaarin ciidamada gurmadka toddobaadkii hore ayay ahayd markii falal caynkani oo kala ah oo lagu dhaawacay 4 ruux oo Soomaali ah ay ka dhaceen isla deegaankaasi oo ka mid ahaan jiray deegaanada ugu nabdoon ee Kipton dhacdadan cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli kulan looga hadlayay adkeynta ammaanka Soomaalida ay mas'uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida la qaateen saraakiisha sarsare ee hay'adaha ammaanka gaar ahaan booliska Kipton ilaa 13 ruux oo Soomaali ah ayaa 3 bilood ee la soo dhaafay oo qurah lagu dilay deegaanada hoos yimaada magaalo xeebeedka Kipton oo Soomaalida ugu badan ee dalka Koonfur Afrika ay ku nooshahay Maxamuud Cabdullaahi Xuseen Aboke xafiis wareedka TV-ga caalamiga Royal 24 magaalada Johannesburg dalka Koonfur Afrika